السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناسد دمانتينبا halkani waa xarunta telefishinka caalamiga SBS TV kula ee magaalada Hargeysa. Waxa la gaaray waqti amintana kala idin soo gudbin jirnay wixii wanaga soo gaaray daafaca caalamka iyo dhulka ay Soomaalidu degto. Warkana waxa la socodsiin doona anigu Axmed Baashi Cali Shira. Qodobada warka ee ku marqi doontaana waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa taafuray barnaamij loogu magac daray madaxtirinta shaqaalaha dawladda Soomaaliland. wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka asluubta ayaa horyimi mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland. wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ayaa baaq nabad u diray beelaha walaalaha ee dirtu ku dhex marayso deegaanada cirif weyn deegaano hoos yimaada. golaha guurtida Soomaaliland ayaa baaq nabad u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. safiirka hore Soomaaliland dalka Norway Maxamed Alina ayaa hambaliyay hanaanka cusub ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabelle ayaa sheegay inay bilaabi doonaan dhisidda maamulka golaha deegaanka ee magaalada Jowhar. Daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roonaha qiimaha ku soo dhawaada isagoo fidsan.